حقيقة للرب قف كستين الرميو أو مؤمن أي وحي تهي مركي إلهي سبحانه وتعالى كأبوري انت هذا إفك إيمان أي وحال لتشان قويي محاد عوني دونتا أجشادنا وإمسا عمل كابونا سين قندونا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام المهم مركو علوشة كتير بقول يلباتن بريء مرهيو مراحل كلا الدوان أصام مره ملك بالله صادريا ملك قاسي ونفتو كأفوفيا أفر الرماد بالله يهي ديوان قلي أوقر أفر تا الرماد وحويان قف كان إمسون نولانيا محين نقول دونتا أرزاق ديسا يا وحا أو يالنا يا قودنا يا عنيا عملك وشقين دونا إمحوية هاي النهاية دي سمحون نقول دونا أهل النار بس أهل الجنة وحقيقة للربع إلا الرميو أو غيب أو مقن لما كمدا هدينا وحي الدول استاغنا أو أجاشا إيا أرزاق ده إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه هي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نف ما أهان إن دمته إلا أقلاشها إلهي إيا قرال كيلوغو تلقلي إن يكون دمته مويان مصائب كسته أو دعيسة إيا وح كسته أو كوغو إيمانا يأغو marka lagugu talagalay inaad dhimatid baad dhiman marka lagugu talagalay dhibaatada noocaas inay ku gaarto bay ku gaari wa xaqiiqo ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa kariimka inuu cadaynayo nabigeena alayhi salatu wassalaam wuxuu ka waramay ilaahay inuu qoray maqaadiir al khalaa'iqdan oo dhan مخلوق ودن وحي لو قدري إن لو ديوان قليل ولما قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة إنتان سماوات كي يدولك ولا أبورين كنتم كن أو سنة أيها لغا فاروقي أو للديوان قليل ماشا آتلا بدأ لغايسد إيا وحا آدلا كل ميسد إيا عمري قاقو إنت أو نقنيو هوريبا لو ديوان قليل مداس أيادنا كبحسن كرين إيه كوجو دريريسا كوجو صعانيسا مال بقف بيكو إيمانيسا أرزاق دون سكل الدوام بيدتك أوجو إيمانيسا إلهي سبحانه وتعالى وحو الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وحدلك دوشي سكوتو كوبيا أو نولاه مجران إلا إلهي سبحانه وتعالى ببلن قاضي أرزاق دودا إيا نلوش دودا إلهي ببلنقا ملايقا بدا قنتي دا يا الله وحبو قوضانا يا قرآن شدا قدك كوشرتانا وحبو قوضانا يسا حيوان كميدك أووينا وحبو قوضانا يا والنوعيك للدوان وحي عنيان ميلها أي كنو ليهن ميلك للدوان ويه وحي أكل باهيهن وحك للدوان ويه إلهي ببلنقا دي أسجعنا سيدو أرزاق يا مولى يقال ولهذا النبي قال عليه الصلاة والسلام وهو مغلي حاسكي ساء محبيبة ودعي سنيسة كدعي سنيسة رسولك إلهي نقول راحيو نرى الإسلاقاتان أبهن إلهي نقول راحيو نرى الإسلاقاتان ولكن معاوية نصيده كله مركز النبي يقول محبيب الله الله وحو يري waxa aad qorsheynaysaa waa ajaal laga faaruqay iyo raad inta qofku tilaabo dhulka dhigaya la qorsheeyay oo la qoray iyo arzaaq qofku wuxuu qaadanayo qoodanayo aan la qaybiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala kamid waqtigiisa ka hormarin maayo
markii la gaarana shay ka mid a middaas ilaahay waqtigiisa kadib dhigi uu mahayo haddaad ilaahay weydiisan lahayd cadaabka naarta iyo midka qabriga inuu ilaahay kaa badbaadiyo lakaana khayran laki kaasaa kuu khayr badnaa kaasaana kuu fiicnaan lahaa meeshaani meel la joogaya ma aha muddo yar baa la joogayaa qofba mar baa la qaadayaa qofba cimrigiisu inbuu la eg yahay ilaahay baana yaqaana annagu ma naqaano meeshaan marka maadaama laga guurahayo cadaabka aakhiro midka qabriga ilaahay inuu kaa badbaadiyo inaad su'aalatid oo weydiisatid ducadu halkaasay munaasab ku tahay wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam low anna bna aadam farra min risqihi kamaa yafiru min almowt laadrakahu risquhu kamaa yudrikuhu almowt haddii bani aadamku ka carari lahaayeen risqiga loogu talagalay in la siiyo sida ay geerida uga baxsanayaan oo uga cararayaan oo isleeyihiin meeshaan dhibashaa ka imaanaysa ka carar hadday ka carari lahaadeen risqiga loogu talagalay laadrakahu risqiga ayaa raadsan lahaa oo ka daba tegi lahaa kamaa yudrikuhu almowt sida mowtku uga daba tegayo oo bad iyo biri meel kasta uu joogo marka la gaaro uunan waxba u dibdhigahayna u soo qabanayo ayaa risqigu kaaga daba imaanaya waa inaad aamintaa oo yaqiinisaa risqigaagu waa kuu imaanaya ama badda saarnow ama biriga saarnow ama caafimaad qad ama jiranow ma waayaysid waa kuu imaanaya yaqiintaas ku seexo kuna soo toos walihaada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina barayaa haddii risqigu sidaas uu yahay in aanan ku raadin meelo luuqluuq ah xiyal iyo xeeladaysi xaaraam aan ku raadinayno inaanan risqiga ku raadin maadaama intii naloogu talagalay aan haleelayno wixii aan naloo qorinna aanan helahayn inaynu iska ilaalino dariiq aan ilaahay raalli ka ahayn inaan ku raadino wuxuu nebigu yidhi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci anna nafsan lan tamuuta xataa tastakmila ajalaha wa tastawciba risqaha malaku jibriil wuxuu igu afuufay naftayda ii waxyooday naf dhimanaysaa inaynan jirin ilaa risqigeedii ay oofsato ajasheediina ay dhammaystirato hadday halkaas ay tahay ayaa nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam walaa yaxmilanna axadakum istibطaa'u risq qof yaynan ku xambaarin idinka mid ah daahsasho uu daahsaday risqigii uu rabay oo uu daahsaday inuu an yatlubahu bimacsiya inuu risqigii ku raadiyo dariiq xaaraam ah yaynan ku xambaarin ilan bani aadamka deg deg baa ku sugan goormee gaaraysaa wax fiican oo badan inaa heshid buu leeyahay markaasuu wuxuu ku didaalayaa inuu gaaro yaynan arrintaa idinku xambaarin dariiq xaaraam ah inaad risqiga ku raadisaan fa ina allaha tacaala laa yunaalu maa cindahu ilaa biطaacatih ilaahay agtiisa waxa yaallo oo kayd ah oo khasaa'in ah oo xoolo iyo kayrkeedba ah ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa waxa yaala laguma gaaro ilaa ilaahay ridihiisa iyo taacadiisa mooyaane wax kale laguma gaaro wuxuu xadiidkaas nebigu leeyahay fattaquu llah waajmiluu fi alab ilaahay ka cabsada oo qaabkaa wax u raadinaysaan qurxiya dalabkiina qurxiya dariiq xaaraama ha ku raadinina dariiq xalaala ku raadiya iska ilaaliya nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegahayaa ilaahay inuu la hadlay ibnu aadamka waxaa ilaahay uu leeyahay ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla sadraka ghinan waasuddu faqrak ibnu aadamow cibaadadayda u tafaruq caabudiddaa i caabudaysid iyo ka shaqaynta daacadayda aa ka shaqaynaysid u tafaruq qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa haninimo faqrigana irdihiisa waan kaa awdayaa ballan baa ilaahay kuu qaaday haddaa ilaahay daacadiisa ku mashquushid oo wax walba aakhiro aad ka hormarisid
إلهي وحو كوبلن قاد قلبك إنه إلهي غني النمط هايو فقرنا إلهي أكا أودي وإلا تفعل أي إلهي سدا هدادا صمين أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك قعناها مشغول بانقورت كوغلينيا فقرك أنا مد بوليو باهدا دوي تاغنانيسا wax kasta oo aad haysi waa baahanta qalbigaaga ayaad ka baahanto ka gubanaysa waxaan ku hor yaala dareenka kugu jira waxa weeyaan xagee ka ziyaadisa hebel see uga daba tagtaa hadda intaas ku dari lahayd hadii intaas ay ku dhameystirmi lahayd mar hore iska cibaadeysan lahayd oo waa ka nasan lahayd waliga taas un baad ku jiraysaa ilaa geeridu ka timaado ballan ilaahay wuxuu ku ballan qaaday haddaada nin aakhira aadan noqonin ee nin adduunyo aad noqotid in qoorta lagu geliyo fakhri aad ka caranaysid oo habeen iyo maalin ay isleedahay halkan fakhri baa kaaga soo dhawaanaya mashquulna qoorta lagu geliyo aad ku mashquulaysid adduunyo raadinteed waxa kaaga imaanayaana ay tahay intii lagu diiwaan geliyay oo kali ah adduunyadu qofka raba iyo qofka aan rabin oo ka cararahaya ayadu ma dhihi karto qofkan waa ay rabaa anna waan rabaa waa aadaya qofkaani waa iga jeesto waan ka jeesanaya ma dhahayso qofkaani adduunyada hadduu ka cararo waxa ka daba imaanaya intii loogu tala galay midkaana hadduu adduunyada ku mamanaado oo raadiyo habeen iyo maalinba u labisto waxa uu ka helayaa intii loogu tala galay maamul ilaahi ah oo ilaahay oo maamulayo ayaynu hoos harsanaynaa maamulkeenu waxa ka hirgelaya waa inta ilaahay uu ka ogolaado ma sha Allah kana wama lam yasha lam yakun asbaabaha rizqiga lagu raadiyo dhibaatooyinkana looga hortago waxa kamid ah al-istiqama ala shar'i Allah ilaahay daacadiisa qofku inuu ku toosnaado oo sharciga ilaahay ku toosnaado haday kala noqoto sharciga ilaahay hadaad ku mashquulshid oo ku diinta iyo barashadeeda iyo khayrka ku mashquulshid furas badan baa ku dhaafaya haday kala tahay maya halka ma jirto waxay jirtaa ilaahay meesha uu dhigay oo ah daacada ilaahay lagu mashquulo wa allaw istaqamu ala tariiqati la asqaynahum ma'an ghadaqa haday wadada fiican ku toosnaan lahaayeen biyo wanaagsan baan waraabin lahayn barakaadkii samaawaadkii arlada loo furi lahaa ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا يدك مقالوين كتشوغا إلهي رميان وإلهي كبقان إلهي وحو أفرها يا وحويان وأفر لها سماوات كبركات كودا إيا أرلدا وحا بركيا الله بالله أفر لها روب كي بالله سودين إيا دول كان خيرات كي سيبا الله صاريا مركزان نولبا خير إيا برواقا وكدرقيا ضاعد إلهي بالمرادية وحالو الرادية رزقك أو لغو ضلبا صلة الأرحام رحم كأول حريريه أيا لغو الرادية نبي وحيري عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه قفك دون هيا رزقك إن الله واسعيه وحويا عمرك سنة الله ديريه qofkaasi waxa weeyaan qaraabadaha xariiriyo riximka iyo qaraabadaha xariiriyo masaakiinta ha garab istaago dadka nacfi ha u lahaado weey qofku haduu bulshada nacfi u leeyahay oo danta guud iyo khayrka kala qayb qaadanayo ilaahay wixiisana waa u barakaynaya rizqigiisana ilaahay waa ugu waasicinaya wuuna helayaa meel uunan ka maleysanahay buu ka helaya ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحول ليه إن لله عبادا إلهي وحول ليه أضامه اختصهم بالنعم نعموين بإلهي سيئي أو كخاصية لي لنفع العباد سيئي أضامه أو أنفعان أي إلهي نعم يحوله يهانت إلهي أسي يقرهم فيها ما بدلوها إلهي نمعدا أوسيي وكل حسوغيا وكو إلالينيا انت أي بحين هيان
فإذا منعوها نزعها منهم وتحولها إلى غيرهم هذا ديدان نمعد إلهي أوسي إني بحيان إلهي واكسيبيا وحونا أوريتشينيا كوكله أو ضدك كوافعة waxa adigu aad haysatido ilaahay uu ku siiyay waa wax ilaahay dad badan oo nan siinin ada ilaahay kugu khaasiyo dad kooban baa ilaahay siiyay waxa ilaahay u siiyo xikmadahay waxa weeyaan baa nabigu yiri linafci al-ibad adoomada ina ku anfacdid waxa khayrka ina kaga shaqaysid oo adoomada kale ku anfacdid ilaahay baa ku dhiibay dhiib baa lagu yiri markaas nabigu yiri alayhi salatu wasalaam انت اي نفعغاس بخينهيان الهي وا اوكوبهيان وانا كسغا يقرهم فيها ما بذلوها انت اي بخينيان الهي سبحانه وتعالى وا كدخسغهيا فاذا منعوها مالك يديدان ما كو ايمانهيا نزعها منهم الهي وكسيبي كو كلو بخينهيا الهي وديبيا قف wax bixiya oo wax bixin oo bixinahaya daraadeed faqri u noqday lama sheegin qof wax ilaaliyay oo ku bakhiilay oo ku guulaysto liimaan ku gaarayna lama sheego bal u fiirso qofka wax ku bakhiilo wax haysta wixiisana ku bakhiila waajibaadkii uga bakhiila khayrkii iyo nafciga uga madda uga bakhiila ilaahay agtiisa amaan kuma leh dadka agtoodana amaan kuma leh bal u fiirso qofka nacfiga dadka u leh ilaahay agtiisa amaan buu ku leeyahay dadka agtoodana wuxuu ku leeyahay amaan iyo khayr baa u taala maalin boona u baxsanaya xaaladiisu adag tahay khayrka uu la baxayo marnaba ku qadim hayo aakhira intaan la gaarin adduunyada u baxsanaya imisa ilaahay ku caafiya dad anfacay fuqara ah oo masaakiin ah imisa ilaahay amraad uga dul qaada dad jirana imisa ilaahay ku anfacay ولذلك الإمام الشوكاني بدر الطالع wuxuu ku soo guurinayaa qiso cajiib ah qisadaasi waxay ahayd nin baa wuxuu lahaa beer yar waxaana ku dhex yaal ceel ceelkaas beerta ku dhex yaala beertaas ku warwaraabiya masaajid buu meeshii ka dhisay masaajid ayuu dhisay dad badan oo sidaas ma leh masaajidku habeenkii wuxuu soo qaadaa masaajidka la soo aadaa faynuusti oo masaajidka ku iftiimin lahaa iyo cashadii ayuu soo qaataa masaajidku soo dhexdhiga hadduu dad ay yimaadaan masaajidka way la tukadaan cashadana waa siiya hadduu dad waayo cishihiisu iska tukadaaya salaadiisa cashadiina asaga cuna gurigu iskaga soo laabto dhaqankaas u lahaa faynuusti iyo cashadii buu isla soo qaadaa maalintii dambe ayuu wuxuu damcay ceelkii oo guray oo biyo yareeyay in la qodo asaga iyo wiilashiisi ceelkii bay qodid ku bilaabeen aabihii baa hoos jira ceelkii meel kasta waa iskaga soo dumay gabigiisiiba ilmihii waxay isku dayeen inay ceelkii qodaan oo aabba ka balraadiyaan oo badbaadiyaan waxa u soo baxday inaan waxba laga qaban karin ceelkaas inuu dumay waxay uga tageen oo yiraahdeen qabrigiisii baa ilaahay ka dhigay naga wado sidii bay iskaga daayeen 6 sano ka bacdi ayay qabrigii qodeen ayagoo oranaya ceelkii aan bal fiirino ayay meel kale geesa ka qodeen waxay ugu tageen aabe oo nool ayay meeshii ugu tageen way yaabeen soo bixiyeen bal waran bay yiraahdeen wuxuu yiri markii aan ceelku dumay meel yar oo god abaan galay soo dumay waxa isku kay gooyay dhagax weyn baa fuulay iridii meeshaas wixii soo dumay oo dhan iga badbaadiso aan ku jiro ilaahay iga badbaadiyay anoo mugdiga ugu weyn adduunyada mugdi la mara ku sugan ayaa waxa ii soo galay faynuusti
iyo cunadii aan qaadi jiray oo isla socda ii soo galay faynuusti baa ii timaada iftiinkaas baan helaa cunadii aan qaadi jirayna meesha bay igu timaada cunadaydaan iska cunaa faynuusteedana waa iftiinsadaa intaasaan halkan ku soo mooday oo ku jira qofka adduunyadan jooga sadaqada uu la baxayaa cajaa'ib bay leedahay aad iyo aad nuuciyaal ah oo u kala duwan ahlu cilmiguna in badan ay soo guuriyaan cajaa'ib dhacda adduunyada markuu joogay hadda waxay uga tala galeen nin dhintay laakiin nuxurkii uu samayn jiro khayrkii uu samayn jiray intuu sadaqa qaada maalin walba masaajidka uu geynayo iyo faynuusti iftiinka uu ku nuurinayo beydka ilaahay ayaa loogu nuuriyay mugdiga inta leeg asagoo ku jira ilmihiisina ay ka quusteen ayaa halka loogu iftiimiyay qofku marka nacfiga uu leeyahay oo khalqiga uu leeyahay marnaba waayi maayo waa helaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala uu siinaya